اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، واجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة. السلام عليكم أصحابتي قاليقا كسو دواada يوتيوب janaalkeena waa mar kale iyo muuqaal cusub. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago daily routine-keyga maalintii oo idil waxa aan qabto. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena. haddii aad horey noola joogtana waan kaaga mahadcelinayaa. maalinteyda maanta waxay ku bilaabanaysaa quraaca inta kusoo karinayo. maalinteeda way kala duwan tahay, dhinacyo kala duwan ay leedahay, laakiin waxaan xooga saaraa oo idin duubayaa cuntooyinka aan kariyey maalintii hadduu ilaa yiraahdo. inta beer ayaan kusoo karinayaa. waxaas hadda aan kusoo darana waa barbarooni shiidan. maanta inaan barbarooni shiidan aan ku dara ayay iga qabatay. intan waxaan kusoo jarjarayaa basashii iyo barbaroonigii aan ku dari lahaa. intaas kadib waan kusoo darayaa. waxaan rabaa in xoogaa uu ku huuro. hadda beerka weli si fiican uma bislaanin, laakiin waxaan rabaa inuu barbaroonigii iyo basasha iyo asaga isku bislaadaan oo si fiican ay isku dhexgalaan hadduu ilaa yiraa. hadda diyaar ayuu inoo yahay oo saan ayaan rabaa inaan uga dejiyo. xoogaa qoyaan yar ayuu leeyahay, maadaama aan rabo in rooti lagu cuno xoogaa qoyaan inuu ii lahaado ayaa fiican. qaabkan ayaan ugu dejinayaa. mideeda kale gaduud inuu noqdana aniga doortay, waayo waxaan ku daray barbarooni shiidan. xoogaa waxaa waaye dhadhan yar oo qurux badan ayuu siinayaa iyo midab yar oo maasha allah ah. kadibna meeshaan ayaan kusoo diyaarsaday oo aan kusoo gediyey. alxamdulilah, ilaahay ayaa mahad iskale. subaxeena subax qurux badan ayuu inoogu bilaabday. waxaan kaloo intaan kusoo diyaarsanayaa rootigii lagu cuni lahaa. sidan quruxda badan ayay kusoo baxeen, maasha allah. aad ayay u macaanaa, lagama sheekeyn karin wallaahi. ilaahay ayaa mar walba mahad iska leh. midabka gaduudka uu siiyeyna waa sidan midab qurux badan ayuu ka dhigay barbarooni shiidan markii aan ku daray. adiga waad iska dhaafi kartaa, laakiin waxaa waay kalar yaroo macaan oo kuu siinayaa. hadda waxaa la gaaray galabkii. waxaan rabaa inaan inta casiriyo ku sameeyo. casiriyadan maadaama ay u baahan tahay in xoogaa firiijka lagu haayo, waa wax waqti kale ama biri camal la isticmaalayo. hadda waan iska sii karinayaa, kadibna firiijka ayaan gelinayaa. kastarkan ayaan ka sameynayaa. caano ayaan dabka soo saaray, waa caano boori aan soo qasay. kadibna waxaan ku darayaa 2 qaando oo kastar ah. ani mar walba qaabkan ayaan u samaystaa. waxaan kusoo darayaa kale caano. caanahana waa ujeedaan qaandadaas labadeed camal. caanaha inaa iska badisi ma fiicno. kadibna waxaa waa intaana si fiican isku qasayaa. caanaha qabow waaye, waa markii aan dabka saaray. weli ma soo kulaanin. kastarka waxaa fiican caanaha oo aad u qabow inaa ku shubtid. haddii caanihii kulul aad ku shubtid waxaa waaye burqu kaa yeelana ama kuuskuus. caanihii oo qabow aan kusoo shubayaa. casiryadan aaday u macaan tahay, aaday u fiican tahay, waana wax yar oo waqti badan aan qaadanaynin. kadibna waxaa waaye firiijka iska gelinaysaa. xoogaa 3 saacadood camal haddii ku jirto enough waaye. waxaan kaloo kusoo darayaa sokor. sokorta iska badinin, macaan zaa'id hadduu noqdo ma fiicno. 3 qaando oo sokora kusoo darayaa. 3 qaando oo qaandada yaryarta ayaan kusoo daray. kadibna waxaa waaye si fiican ayaa u walaaqayaa. kastarka waxaa waaye haddii aadan walaaqin wax badan weliba salku kaaga dhigaa ama digsiga qaybta hoosuu ku dhigayaa. inaa inta badan walaaqdo.
waxaan kaloo inta aan ku sameysanayaa heel inaan soo tumo. Heelka shiidan hadaa heli kartid asaga ayaa fiican. Kan hadda ani aan tumayo kale aad inaan u tuntiduu rabaa. Sometimes xitaa waxaa dhici karta inuu kastarka uu ka dhex muuqdo, laakiin kan shiidan ayaa mar walba kugula talin lahaa. Ama faniila hadaa helaysid inaa isticmaashid, waayo muhiimadu waa inuu caraf kuu yeesho. qolfaha ka bixiye kadibna waxaa waa si fiican u soo tumay. intaas yarta ayaan ka isticmaalayaa. adi bedelkeeda wixii kale aa heli karta oo ku bedelan kartaa, faniila ha noqoto ama heelka shiidan. muhiimadu waa inaa wax carfaayo aa ku darto. markuu xoogaa soo karsamane waxaa waaye qaandada inaa la dul taagnaatid, waayo caano maadaama uu yahay ama waa suugo buraha oo uu ka daadanaa ees ahaynna waxaa waaye salku kaaga dhagaa. kadib markaan soo kariyey inta ayaa kusoo shubay, xoogaa soo jilcan ayaa inta kusoo shubay. markuu qaboobo asagaa adkaan doono. sidaas ayuuna diyaar inoogu ahaa. waxaan kaloo inta aan ku sameysanayaa casho. cashadeena maanta waxaa waaye baasto ayaan rabaa inaan inta ku kariyo. basasha ayaa ugu horeyn soo jarjaranayaa. basasha yaanyadaasna waad arki doontaan iyadana qaabka aan yeelo. mar walba ilaahay ayaa ku mahadsan nicmooyinka uuna siiye. ilaahay waxaan ka baryayaa qof kasto wuxuu ku haminayo wuxuu jecel yahay oo kheyr waa inuu ilaahay siiyo. wuxuu ilaahay qaybtu anagana ina siiyey oo inoo barakeeyo, intaan haysanina mid ka qurux badan oo siiyo. mar walba waa iska fiicanta inaa ilaahay uga mahad celisid wax yarka aad haysato soo inoogu barakeeyo. intaas kadib inta waxaa kusoo jarayaa yaanyada qaabkaana u jarayaa. aniga waxaa waa biyaha ku karkariyaa. biyo markaa ku karkariyana qolofka ayaan ka fiiqaa. intaan hore ayaan jarayaa, kadibna qaabkaas dhexda ka yeelayaa. tan waxay iga caawinaya marka in oo hadhow qolofka aan si fudud uga fiiqo ay iga caawinaysaa. intaas kadib waxaan rabaa inaan inta qadada aan ku kariyo. waxaan soo saaray biyihii oo baastada iyo digsiga aan suugada ku karin lahaa ayaan soo saaray. kadibna waxa aan kusoo shubi doonaa saliid markii xoogaa soo kulaatana waxyaabihii kale ii diyaarsanaa ayaan kusoo wada shubanayaa. suugadii markaan isku soo dardaray kadib hadda waa waqtigii baastada. waxaan kusoo shubay cusbo, kadibna waxaan kusoo darayaa baastadii oo wax yar wax badan ma karinayo. intaas waxaa laga rabaa casho iyo suxuur hadduu ilaahay yiraahdo. suugadeynana waa ujeedeen sida quruxda badneed aan iskugu dardaray. alxamdulilah, mar walba ilaahay ayaa mahad iska leh. baastada intaasaa rabaa inaan kariyo. hadeer waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalka.
saa ujeedaan suugadeena sidaan quruxda badan ayay kusoo baxday. Karootadeedii waxeeda dhan barbaroonigeeda ayaan kusoo daray. soo ugu dambeyn oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad janaalkan ku cusub tahay nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena. haddii aad horey noola joogtayna mar walba waan kaaga mahad celinayaa. muuqaalka haddii aad ka hesho sidoo kale like-ta inoo saar.